qaar ka mid ah dhalinyarada iyo waxgaradka kala duwan ee gobolka saaxil ayaa xisbiga mucaaradka ee wadani ku eedeeyay qabyaalad iyo kala tafaraaruq uu kula dhex jiro dhalinyarada kala duwan ee gobolka saaxil iyaguna xisbiga mucaaradka ee wadani ugu baaqay inuu dhalinyarada gobolka saaxil kala dhex baxo qabyaalada iyo kala qaybqaybsiga uu dhalinyarada kula dhex jiro sidoo kale waxay dhalinyaradani beeniyeen dhalinyaro shalay ku hadlaysay afka dhalinyarada gobolka saaxil oo cambaaraysay xadhigii gudoomiyaha ururka jiidali waxaana ay sheegeen go-aankaasi inaanu ahayn mid ay ka midaysnaayeen dhalinyarada gobolka saaxil oo kuwa dhalinyaradaasi oo ka hadlaya arrimahaasi waxaa hadalladoodii ka mid ahaa sida tan isugu nimi oo aanu cabasho aada iyo aada u weyn aanu ka muujinaynaa xisbiga wadani oo gobolkii saaxil kusoo dhex tuuray bambo F1 bambadaas oo ah qabyaalad dhalinyaradu kusoo dhex tuuray jiidalay iyo miidalay iyo waxaan dadka anficin naga daabaan leenay 10 sanadood xilka fadhiday shantii lagu doortay iyo shantii aad fadhidayba gobolkan saaxil waxyaabo badan buu ka cabanay wali intaad xeer dejintii baa tahay Somaliland gudoomiye baarlamaanka tahay wali intaad TV-ga soo fadhiisatay maad oran dan berberu leedahay lagama hadal laakiin kolba inta dhalinyaro meel ku soo ururisid oo waliba xafiiskii xisbiga wadani intuu isugu keenay dhalinyaro uu yiri waa dhalinyaradii Subeerawal oo runtii uu ka been sheegay samcadii iyo sharaftii beesha Subeerawal uu meel uu kaga dhacay aad iyo aad baan arintaa u cambaareynaa anagoo ah dhalinyartii maxay ahayd gobolka saaxil mudana ciro waliba gaar ahaan waxaan leeyahay berbero waxaa tiri way xanuunsanaysaa dawadiina waxaan soo dhigaysay cilmi rooble berbero waa caafimaad qabtaa baan leenahay maadiga markaa cudur qabyaalad nagu soo dhex tuuraya annagu waan caafimaad qabnaa qaadano hadalkii xumaa ee shaydaan ku soo yeersiiyay xafiiska wadani lagu qabtay ee ahaa qabiil dhalinyarta gobolka saaxilna waxaan leenahay ma aha dhalinyaro qabiil ee waa dhalinyaro qaran qabyaalad iyo maxaa daayana reer hebel iyo kana reer hebel toona looma baahna waxa weeyaan anagu waxaan wadaan nahay dhalinyarta taageersanahay in laga daayo qabyaalada waxa weeyaan xisbiyada mucaaradku waxa weeyaan inay dhalinyarta iyo maxaa ay u horseedaan xumaanta iyo maxaa qabyaalada Khalid Xasan Nuur telefishinka madaxa banaan ee Bulsha TV magaalada Berbera.